السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada walaalaha qaaliga meel walba joogtaan channelka daga daawanaysan waa Faaduma Filsan qofka la hadlay waaniga Faaduma Filsana khayr badan ayaa idin rajaynaya Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa Ilaahu haa iyo maya meel ha nagaga wada yeedhsiin Ilaahu haa iyo maya meel ha nagaga wada yeedhsiin Soomaalidu dhahdaa anigu maanta waxaan la yaabanahay oo la yaabanahay qofka horta bini aadankii qof uu taageeri karaa qofna fikirkiisa uu ku raaci karaa xalliye anigu fikir aan ku raacsanaa oon ku taageersanaa baa jira anigayga hadda hadlaaya waan ku taageersanaa sax bay ila ahayd ilaa haddana fikirkaas uu ila saxsan yahay markuu ka hadlayana uu ila saxsanaa fikirkuu ka hadlaayana waxay ahayd inaan laba qof oo isshukaansada lacag ayna isa siin karin waxba inaan lacag laysa siinin haddii labada qof waxa ka dhexeeya waa sheeko keli soo ma aha muhiim ma aha inuu biil u qoro inuu dhaho anaa masruufaya inuu dhaho waxbarashaan kaa bixinaya hidididi waxaas aniga kuma raacsanayn dadka samaynaya si isaga ula qaldan yahay anigana ila qaldanayd laakiin hadda fikir ka duwana imaaday aniga taa laba jeeriba waan ku taageersanay hadda hadduu taaba samaynayo waan ku taageersanay oo taa dad keli dad ka baraarujinayo dhalinyarada kala talinaayo inkastuu gabdhaha tala siinin oo gabdhaha uuba u arka cadow haddana wiilashuu talada siinaya ugama xumayn laakiin waxaa khalada maalin kasta inuu gabadh caayo waaya u cayne gabdhaha cay ma mudnaan waana khalad kor dumar kaba isma dheera inaad maalin kasta intaad soo fadhiisato xalliyow aad gabadh caydo taas way ku qaldan tahay anugu shalay waxaan kugu taageersanaa shukaansiga lacagta laysu siinaayo ee diiday waan kugu raacsanaa fikirkaas laakiin inaad hadda gabdhaha caydo ee dhahdid hadalla aan afka lasoo marin karin waa khalad aad u weyn waadna ku qaldan tahay cayna kaama mudnine walaalow cayda naga daa cayda naga daa teeda kale si kastaba ha ahaato dadka social mediaha ku jira ee reeraha ah walaalayaalow noloshooda uga baxa noloshooda u dhaafa waxa iyaga maxaad noloshooda hadda markaas waxa ay soo duubeen ama markaad aragtaan ma ogiye maxaa qof markaad aragtaan aad noloshiisii hore u raadisiin maxaadana idinku jirto wareer guryaha duminaysaan daaya dadow xaliyowna gabdhaha cayda ka daa waadna khaldan tahay maalin dambena nama soo cayn kartid maalin kasta cayaan la taagan tahay bal arka hadda gabadhan suu caynaa waxay kugu dhahday nin gaala ay qabaa no problem baad dhahday ciyaal baan u dhalay no problem ilmahan uu cello waaye no problem intaasoo sano maxaa la dhihi jiray qabaa dhibaato ma laha ma wax diina idinka dhaxaysa maya ma diin buu kugu qabaa maya no waaris anaa ku qaadanaya ha okay taas waxaa kasii daran indha adayga maxamed shuubo badbaadiyey naagta isagaa waraysanayaba ha yes shuubaa soo badbaadiyey soomaaliyay waa tanaa waa hambo waay ilaa goormaad ku jiraysaan inaad hambooyinka cuntaan ilaa goormaad ku jiraysaan inaad shuubooyinka badbaadisaan khalaas maalin kasta gabdhaha saa u cayda xalliyow xaq ma aha cayda walaalow gabdhaha iska daa waayaa gabdhaha u cayne maxaa gabdhaha wax uga sheegee gabdhuhu hadday niman lacag ka qaateen ooy soo dhaceen oo laga yaabo dhibkaasba adiga xataa inuu qayb kaa soo maray waad ka wacyigelin kartaa dhallinyarada dhibaatadaasoo kale laakiin ma aha inaad gabdhaha caydid oo maalin kasta aad dhahdid maxay waaye hadallaa afka lasoo marin karin wax aan lagu hadli karin war cayda naga daa naga xishood niyo waa ku xishmaynaynaaye cayda naga yaree cayda naga yaree xalliyow